maslaxa waxaad ii sheegtaa ninka Soomaaliga ah ee dil uusan geysanin loo qabsaday iyo sida uu badbaaday aad waa maasantahay Caruush runtii qisadan iyo qisooyin kale oo badan waxaanu kaga hadli doonaa podcast dheer oo muddo hal saac socon doona oo ka bixi doona YouTube-ka Caruush waxa ka socda siri runtii looga hadlay qisooyin fara badan dadyow kala duwan looga wareysan doono Caruushka YouTube-ka Caruush ayaad ka daawan doontaan runtii qisadan waxay ahayd mid kamid ah qisooyinkan aniga goobjooga u ahaa waxayna u dhacaysay sida tan waxaanu deganayn guri markaas aanu ku deganayn ilaa iyo 10 qof oo Soomaali ah marka 10 kaas qof oo Soomaalida ah qof kamid ah ayaa waxa loo qabsaday dil markaas uusan asaga geysanin waxayna ku dhacaysay sheekada sida tan ninka Soomaaliga gurigu deganaa guriga waxa la deganaa nin markaasi Afghanistan ah marka ninka Afghanistanka waxa weeyaan wuxuu dhibaato ku soo geystay wadankiisa Afghanistan marka wuxuu nin baxsad u ahaa marka wadanka Faransiiska ayay wada joogeen ninka uu joogay guriga wada deganaayeen guriga xataa aniga qayb kale oo ka soo horjeedaan deganaa marka waxa dhacday in ninkii wax soo dilay marka Afghanistan dhibta ku soo geystay nin baa daba joogay oo wuxuu u daba joogay inuu ka aargusado rabay aargudashu waday marka waxa dhacday ninka Soomaaliga oo qolkiisa ku jira oo markaas iska cibaadeysanay oo iska tukanayay ayaa waxa dhacday in ninkii kale uu Afghanistan ka ahaa uu ogaaday ninka inuu meeshan degan yahay marka ninkii uu gurigu soo galay wuxuu soo qaatay jikada buu ninka martaqaana la dili doona wuxuu ku jiray jikada ninka kale wax dili doona ayaa imaaday wuxuu soo qaatay mindi marka guriga taalay mindidii ayuu ninkii galiyay oo dhowr mar ku celceliyay waliba halkaas ayuu ka galiyay toorida markuu uu hubsaday ninkan inuu toorida galiyay oo uu ninkan dhulka ku dhacay oo uu rafanayo ayuu guriga isaga baxay dhaqsidiiba marka waxa dhacday ninkii Soomaaliga ahaa oo aan waxba ogeyn oo salaad ka soo baxay oo salli u yaala wuxuu imaaday jikada gurigii wuxuu arkay jikadii meeshii wuxuu arkay wada dhiiga marka dhiiga markii hore wuxuu maleynayay fiinto iyo wax dhulka ku taatay kadib meesha markuu socday wuxuu arkay nin meeshan rafanaya mindida marka ninka halkaan kaga jirtay mindidii uu ka saaray markuu ka saaray mindidii uu qaatay guriga wuxuu leeyahay security mindidii dhiigayso asagoo wata uu security-ka u geeyay wuxuu yiri nin baa meeshan yaalo ninkii la deganaa ee booliska loo yeero booliska loo yeeray qisadu waa dheer tahay YouTube-ka kaga warrami doonaa qisada marka ninka waxa weeyaan wuu badbaadi doonaa ninka isbitaalka la geyn doonaa oo asaga ma dhiman doono laakiin ninka Soomaaliga la gali macnaa wuu badbaaday wuxuuna waa sababta kaliya ninka Soomaaliga uu badbaaday sababtoo markuu ninkani badbaaday ninka Soomaaliga intaas oo dhan wuxuu ku jiray saldhiga waa la wareysanayay ninka maxaa u dishay maxaa ku dishay ninka wuu dhintaa lagu yiri xataa ninka Soomaaliga marka markii dambe Ilaahay amarkiisa waxa dhacday ninkii toorida la gadiyay hadaba qisada noo soo gabay ayadoo fuul ah waxa ka daawan doontaan YouTube-ka Caruush